runtii waxaana wanaagsan dhammaan bahda janarka kulmiye technology korsan waa korsadii c plus plus shirku waa casharkii 49aad maanta waxaa qaadanaynaa concept la yiraaho composition conceptigaas ayaan isla arki doonaa faa'iidadeeda iyo waxa laaliyo waxaan u baahanahay iyo qaabka loo isticmaalo marka ugu horeysa haddii aad rabto inaad composition aragno waxaan u baahanahay horta glass composition horta haddii aan idin qeexo waa in aad glass qortay glass aad hore u qortay oo hore u diyaarsatay in aad glass kale gudihiisa aad ku dhex isticmaali kartid qaab adigoo object ahaan ku qabsanaysid kadibna oo ka mid noqonayo property-ga amba astaamaha glasskaas kale uu leeyahay tusaale hadda waxaa dhahdoo kale waxaa rabaa inaan sameeyo glass oo ah sheeg baabuur oo kale baabuur ayaan sameynay baabuurka wuxuu leeyahay oo kale midab oo kale uu leeyahay wuxuu leeyahay qiimo uu leeyahay waxaa kaloo u qabsatay baabuurka in uu shirkad soo saarto oo kale xilliguu soo baxo oo kale baabuurkaas wuxuu leeyahay lugo leeyahay marka lugahaas haddii aad rabto koodkaaga inuu kaleen kuu noqdo haddii aad rabto hal meel waa iskugu qori kartaa laakiin markasta oo aad programmer aad tahay waxaa laga hortaa in koodkaaga uusan noqonin manageable mid wax laga bedeli karo marka markasta waxaa lagu xisaabtamaa gadaal dambe in projectigaaga uu noqdo mid wax laga bedeli karo marka waa inta laale inta aad jebin karto koodkaaga ayaa la kala jebiyaa inta ay jebayaan hadda baabuur keligiis gooni ayuu istaagi karaa lugana gooni ayuu istaagi karaa maxaa yeele haddii aad lugu rabto hadda suuqa ayaad tegi kartaa waa kasoo gadan kartaa marka luga iyagana aan u sameyno glass markii aad glass u sameyso baabuur wuxuu leeyahay lugo markii aad aragto lahaansho baabuur wuxuu leeyahay lugo waa conceptigaas meesha ay ka imaaday midaas oo kale waxaa la dhahaa composition baabuur wuxuu leeyahay lugo marka qaar way iska macnaha dabiiciyan ayay u samaysmaysaa marmarka qaarna adiga ayaa samey karo oo ku qasbi karo oo xur ah adiga ayaa marka aan hadalka joojiyo aan aragno tusaale marka ani hadda waxaa rabaa inaan sameeyo battery iyo telephone wuxuu leeyahay battery telephone wuxuu leeyahay dhego marka aad waxyaabahaas oo kale aad aragto ayaa waxaad samey kartaa composition marka balaan galo marka ugu horeyso keywordkan halaan hore ayaan soo arkay marka ma sharxay halaan mar hore ayaan soo sharxay haddii aadan fahansanin fadlan casharadii hore ku laabo battery dhagdhag hadda haddii aan wax qabsado property haddii aan ku qabsado private waa by default marka keywordkan hadda private haddii aan ka tagay haddaa sameeyo waa macnaha ma soo kordhinayso laakiin iskaga sameey battery waxaa leeyahay batteriga midabkiisa waxaa kaloo rabaa batteriga dhirirkiisa oo kale dhirirka marka waa tiro dhirir iyo waxaa rabaa oo kale belciisa waxyaabo kale way jiraan marka shirkad soo saartay tayadiisa xilliguu soo baxay waxyaabahaas oo dhan waa aruuri karnaa qiimihiisa marka laakiin waa example waa iska soo gaabinaya waxaan qaadanayaa belac waxyaabaha muhiimka bes kadib waxaan sameynaynaa function halaan waa daatadeena waa private glasskan banaankiisa lagu isticmaali karo marka waxaan sameynayaa function waxaa leeyahay photo kale ambiyo horta constructorka aan ku bilaabo constructorka haddii aad rabto glasska magaciisa soo qaadanaysaa glasska magaciisa waa kaasa waxaa rabnaa xogtaan in banaanka ay kaaga imaado marka waxaa leeyahay xogta ugu horeysa waxaa leeyahay aan rabo in banaanka laga keeno waa string midab maale soo qaado waxaa rabaa iyadana dhirar in banaanka laga soo gesho dhirar asigana u qaado waxaa kaloo leeyahay asigana intii waxaa kaloo rabaa belac in asigana banaanka baale u qaado marka kadib waxaan leenahay midab okay midab wuxuu la eg yahay dhirar wuxuu la eg yahay dhirar wuxuu la eg yahay dhirar okay belac wuxuu la eg yahay belac okay halaan hore ayaan soo sharxay marka laakiin waa iska dusinooyaa haddii aad rabto halaan aad fahansan tahay videoga waa gudbi kartaa hore u gudbiso ilaa qaybta muhiimadda aad ka leedahay ka gaarto laakiin intaan waa iska sharxa maxaa yeele markastoo wax lagu sharxo maskaxdaada ayaa lasii qabsanayso
waa sameeyey constructorka waxaan sameynayaa functionkan la dhahayo soo bandhig marka return-type-ka waa float wax ma soo celinayo keliya waxaa soo bandhigayaa soo bandhig okay waxa uu argumentiya data banaanka ma ka rabno keliya wax noo soo bandhigayaa rabnaa kadib waxaan qaadanayaa cout kaasoo ah soo bandhig waxaa leeyahay method method wuxuu la egyahay calaamadaas method kadib waxaan haddana leeyahay dirir dirir bela wuxuu leeyahay asigana bela line waa kaasaa marka weli conceptigeena ma gaarin bal hadda object aan sameeyo keliya waxaa rabaa inaadan iga harin oo koodka aan ka lumin marka batteriga glasskan waa battery marka datatype-ka waa battery object aan sameynaa baale u qaado haddii aad saan ugu tago hore usoo sharxay default argument default constructor manoo jiro marka parameterized constructor jiro marka markasta wuxuu error ayuu soo saarayaa sidaa ujeediin error ayuu soo saarayaa koodka sidaa ujeediin wuxuu soo saaray error waana sababtan way ognahay maxaa yeelay parameterized constructor ayuu nooga baahan yahay in aan constructorkan aan xog aan ku baasno marka xogta looguna baahan yahay waxaa midabka waxa waaye iska dhaho madow waxaa kaloo noogula baahan dherarkiisa aan iska dhaho conton balaciisana aan iska dhaho conton oo isku weer camala conton aan dhaho marka haddii aan hadda build aan rando waxa ma soo bandhigayo keliya wax ma soo bandhigayo keliya objectka keliya ayaan sameynay marka si aan usoo bandhigno waxaa wicinaa functionkan kaasoo noo qabanayo soo bandhig shaqadaas bal aan hadda dhaho build aan run kadibna aan isla aragno natiijada sidaa ujeediin midabka waxaa soo baxay madow dherarka waxa waaye conton bilacna waxa waaye conton waxyar aan u qurxiyo ogaa kala sisikiyo si ay u noqdaan wax la aqri karo oo readable ah marka waxaa rabaa inaan glasskan kale aan sameeyo kaasoo ah telephone marka asigana waa boobsiinaa ila socda sidaa ujeediin waa mainka banaanka glasskan ka hoosena waaye qaabkan macnaha hadda hal folder hal file iskugu qorayno waa la sameyn karaa laakiin waxaa jiro iyadoo laba file lagu kala qoraayo oo header iyo cpp barnaamijkaas iyadana way jirtaa marka kaas hadda waa isla arkaynaa waa advanced laakiin waa isla arkaynaa marka hadda glasska inta la iskaga qora asigana glass waxaa leeyahay telephone okay waxaa dhahay telephone kadib private waa boobsiina ila socda string waxaa leeyahay oo kale telephone magaca oo kale waxaa qabsanaynaa qiimaha okay intaan aan ka dhigi maxaa yeelay inuu dheeraado ma rabo public okay waxaan sameynayaa constructorka aan sameynayaa telephone kadib waa string magaca laga soo gaabi kadib intii qiimaha qaar laga soo gaabi xoogaa inaan boobsiyaa rabaa magaca wuxuu leeyahay iska dheh qiimahana asigana waxaa leenahay qiimaha uu leeyahay kadib okay kadib asigana function aan u sameynaynaa kaasoo ah kan camal function oo asigana oo la dhahayo soo bandhig marka si ay waqti igu yaraado kan ayaan soo qaadanayaa maxaa yeelay laba galaas kala waaye magaca isku mid bayna ku koraan laba scope kala jiraan scope-na hore ayaa usoo sharxay okay soo bandhig ayaa dhahay marka xogtan galaas kale ayaa noo qaban weyy marka annaga intaan u baahnin keliya meelahan aan bedelaynaa magaca waxaa ka dhigayaa meeshaana waxaa laga leeyahaa magaca okay maxaa kaloo ii dhiman qiimaha asigana intaa waxaa ku bedelayaa qiimaha okay yes qiimaha kadib halaan waa iska tirayaa intaan le ugu baahanahay
kadib markii uu ii soo bandhigay magaca iyo qiimaha sadar cusub waxaan wacayaa balse intaana wicin ka hor hadda ayaan imaanay meeshii muhiimadeena fadlan hadda indhaha kala fur dhagaagan iyo maay meeshii aan rabna hadda ayaan imaanay sida ujeedeen objectigan glasskan propertigiisa keliya waxa waaye laba properties kaasoo ah magac iyo qiimaha keliya intaas ayaa ku jiro marka waxaan ku daraynaa glasskan waxaan ku darayaa glasskan battery la dhahay ayaan waxaan u siinayaa qaab oo property ahaan oo ka mid ah telephone wuxuu leeyahay battery markii lahaansho imaada ayaa waxaan isticmaali karnaa conceptigan la dhahay composition marka waxaan soo qaadanayaa glasskii ah battery sida ujeedin halaan waa glasska magaciisa fadlan yaal dhumin glasska magaciisa marka waxa u sameynayaa object conceptigi waa conceptigan oo kale kan sida ujeedin waa databkii kanna waa databkii kuwan databyada waxaana siisay c++ iyaga naftirkooda waa glassyo waxaana siisay c++ marka databkan annaga ayaa sameysanay waa iyagana annaga ayaan sameysanay built-in data maahan waa custom data type databa annaga aan sameysano waaye waana glass ahaan glass inuu taagan yahay marka battery annaga ayaa sameysanay objectiga magaca u bixinana battery baa loo bixin markii aan baa u baxsho okay hadda dii aan build aan run dhaho error ayaan u qabsanaa sababtoo ah objectigan aan sameynay inta ayaa la tegayaa objectigan aan sameynay wax ma lahan ii sheegay kii ah default constructor markasta kan ayuu arkayaa haddii aad parameterized constructor aad sameyso compilerka uu iska ignore gareynayo wax default uu sameynaya marka aan sameyno default constructor haddii kale aan intusiibo waxa errorka soo bixi karo intusiyo yaa ujeedin wuxuu soo saaray errorkii marka aan u sameyno default constructor waxaan sameynaynaa default constructor aan sameyno battery default constructor waa kaasa default constructor keena waan sameynay marka deertaan wax cilada ma nagu qabsan si ujeedin wax cilada naguma qabsan maxaa yeelay default constructor kaa soo arkay kan compilerka hadda waa qanacsan yahay ciladii oo nagu haystani waa naga baxday marka aan sii wado hadda waa siiyey laakiin objectigan waxaan rabaa inaan xogtii aan kusoo shubi lahaan meeshaan hadda kuwaan dhammaan xogtii aan kusoo shubi lahaan waxay ka imaanaysaa banaanka waxaanan kasoo gelinoonaa constructorkan marka aan ku daro iyagana si aan ugu daro waxaan sheegayaa databka waa sida kuwaan oo kale camal battery kuwaan markasta maxaa sheegaya databka kanna glasskan databkiisa markasta waxaa u qaadanaysaa magaca glasska okay kadib waxaa alaali waxaa rabta u bixi kan battery u baxshay kana iska baxsho si ay u kala duwanaadaan battery baale u baxsho marka waxaa leeyahay battery aan usoo gaabiyey wuxuu leeyahay battery fog banaanka laga keenay battery okay kadib marka aan saas dhaho waxaa rabaa inaan ku daro markaas soo bandhig markii la soo bandhiga magaca iyo qiimaha waxaa rabaa inaan objectigaas xogtii lagu soo xareeyay aan ka dhaxlo functionkan maxaa yeelay functionkaas wuxuu ahay functionkaas xagga datada ku jirtay private ahayd marka banaanka lagama wici karo inta ayaa ka dhaawacaya waxaa leeyahay battery soo bandhig asiga ii qabanaya dhammaan shaqadii ii qabanaya marka aan sameynayo hadda object oo telephone ah aan sameeyo telephone okay telephone taale u soo qaado kadib waxaa liiga baahan yahay magaca waa Samsung okay waxaa liiga baahan qiimihiisu waa $400 okay objective soo bandhig aan waco build and run error ayaan nagu soo qabsaday to call function error ayaan nagu qabsaday sababtoo ah constructorkan waxaan dhahnay markii aan sameynaynay waxaan dhahay bal aan kore ayna geeyo markii aan sameynayo waxaan dhahay waxaan kusoo baasayaa magaca telefoonka iyo qiimihiisa iyo batterigiisa marka objectigaas ayuu raadinayaa halkaas xaba ayaa naga dhiman objectigaasna wuu noo sameysan yahay keliya waxaan dhahaynaa b
lagu baasaya objectigan dhan ayaa waxaa lagu baasaya objectigan ayaa ka mid noqonaya marka way iskaashanayaan telephone wuxuu leeyahay battery marka hadda ujeedin wax error manuu qabsanayo midabka telefonka midabka waa madow dhirka waa conton balac waa conton magaca waa Samsung qiimaha waa 400 midabka uu soo celishi laba mar maxaa yeelay kan iska xiro maxaa yeelay kaas ayuu ahay haddii aan building rando ujeedin waa kaasa magaca Samsung qiimaha waa 400 midabka waa madow dhirka waa conton balac waa kaasa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen videoga like saar channelkan subscribe saar maasan